kusoo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha maanta waxaan kusoo qaadan doonaa wararka suuqa kala iibsiga iyo waxyaabaha ka cusub iyo kulamadii xalay ilaa shalay la ciyaaray ayaan barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa haddii aan u gudagalna barnaamijkeena waxaa shalay wada ciyaaray kooxaha Fulham iyo kooxda Liverpool ciyaar soo gashay 8 saac iyo bar ayaa qaybtii koowaad lagu kala maray 1-1 oo hoggaanka looga hayo kooxda Liverpool markii ciyaarta qaybtii labaad la soo laabtay ayaa bedel ku soo galay xidiga lagu magacaabo Darwin Núñez asagoo goolka u bareejiyay kooxda Liverpool markii ciyaaryahan ka tirsan kooxda Fulham lugaha ka jalaafeeyay xidiga lagu magacaabo Virgil van Dijk ayaa rigooro lagu abaalmariyay kooxda Fulham rigooradaas ayay dhalisay ciyaarta waxay ka dhigtay 2-1 hoggaanka looga hayo kooxda Liverpool mar kale waxaa hoggaanka u soo celiyay kooxda Liverpool xidiga lagu magacaabo Mohamed Salah oo ciyaarta ka dhigay 2-2 markii ciyaaryahanka lagu magacaabo Robertson uu birta ku garaacay ciyaarta oo ka dhiman sakimo sidoo kale kooxda Chelsea ayaa xal ciyaartay ciyaar soo gashay 1 saac iyo bar iyadoo ku badisay 1-0 ay uga badisay kooxda lagu magacaabo Everton halka kooxda Tottenham ayadana ay ku badisay 4-0 kooxda lagu magacaabo Southampton kooxda PSG ayaa xal ciyaartay iyadoo ku badisay 5-0 halka 2 gool oo kamid ah goolashaas uu dhaliyay xidiga lagu magacaabo Lionel Messi caawo waxa ciyaari doona kooxaha Man City iyo kooxda lagu magacaabo West Ham halka kooxda Manchester United iyo kooxda lagu magacaabo oo ciyaari doonaan haddaan u gudagalno wararka suuqa kala iibsiga xidiga lagu magacaabo Marakafic ayaa doonaysa kooxda Manchester United inay soo qaadato bedelka waxay ka dhigan doontaa xidiga Cristiano Ronaldo oo ka tagi kara kooxda Manchester United kooxda Chelsea ayaa ka gudbisay dalabkii ugu dambeeyay ku doonayso xidiga lagu magacaabo Fofana ayadoo u sheegtay kooxda Leicester City kama gadi doono xidiga lagu magacaabo Fofana uu noo sii joogi doono ayay yiraahdeen kooxda lagu magacaabo Leicester City xidiga lagu magacaabo De Jong ayaa ka soo degi doona magaalada Ingiriiska asagoo wali wada hadal kula jiro kooxda Chelsea markii uu tago xidiga lagu magacaabo Alonso kooxda Barcelona xidiga De Jong wuxuu soo aadi doonaa kooxda Chelsea xidiga lagu magacaabo Lozan ayaa doonaysa kooxda Liverpool inay ku soo darsato safkeeda xidiga Bernardo Silva ayaa ku biiri kara kooxda Barcelona iyadoo dhameystiri kartay heshiiskiisa maalmaha soo socda xidiga Mohamed Salah ayaa shalay u dhaliyay kooxda Liverpool goolkiisii 119aad fadlan haddaad ku cusub tahay beedka noo like garay noo share garay gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan wararka ciyaaraha aan soo gelino maalin walba